qaybtaasi waxaa inoogu xiga kelimad yar oo uu inoo soo jeedin doono mudiirka madrasada al-ustaad Axmed Maxamed Yarow oo inoo sheegi doono barnaamijka maanta aan u fadhino wuxuu yahay madrasada waxqabadkeeda iyo wixii la mid ah inoogu horami doono asagaasaan ku soo dhaweynaynaa. بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخواني وأخواتي runtii maanta aad iyo aad baan u faraxsanahay dadkan daalibul cilmiga oo da'ada yar rijaalan wa nisaan iskugu jiro gabdho iyo wiilad xaqiiqdii aad u da'yar iyo waalidiinta dhalay oo karaamaysan oo xafladda aad u soo qurxiyay oo ka soo qayb galay iyo marti sharaftii iyo culmaa u diinkeeni barakaysanaa nala joogo oo xafladdaana soo qurxiyay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa xaqiiqdii ilaahay baa mahadsan wax badan alfa min mara allahuma laka alxamdu walaka ashukr ilaahay baanu mahadinaynaa wax badan aanan soo koobi karin وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعم كألنا سيئي مسو كوبي كرنو حمد جزنا مسو كوبي كرنو مركا بعد حمد الله تعالى وحان سلام يا آن أقوم هاد علينا يا مرت الشرفك علماء والدين أردد بركيسان وداء ذي رميش كم وغطو إلهي سبحانه وتعالى باهد أنت نقصوا كل ميسين محوها إخلاص أو بركيسان هنوغدقو waxaan u malaynayaa qof kasta niyad saafi abuu ku imaaday uu ku fadhiyaa waxaan u fadhinan waa kalaamullah xaflad qalanjibin ah arday quraanka dhameysay oo 12 arday ah gabdho iyo wiilal iskugu jiro waa arin xaqiiqdii lagu farxo anaga ka macallimiin ahaan sidaan u faraxsanahay waxaan naga daran waalidiinta dhalay oo wax badan waqti badan soo geliyay subax badan la soo kalahay oo dugsi u soo diray nadaafadooda iyo cuntadooda iyo wanaagooda soo jamciyay soo qurxiyay baa naga farax badan waalidiintii dadaalayeen ilaahay dambigooda ha dhaafo runtii waan faraxsanahay farxad la soo koobi karin ilaahay la uu garan karo baan ku faraxsanahay amniga iyo salaamada iyo nabadgelyada aan haysano nafteeda waa nicmooyinka alle ka mid ah waqtigeena qaaliga ah oo aad na soo siisaan waqtiga qaaliga oo aad soo xurteen oo aad nooga imaateen aad ku mahadsantihiin maadaama waqtiga aad uu yar yahay waqtigii aan qorsheynaynay oo ahayd 4 saac inay bilowtana dib u dhac badan uu muxuu ahaa nahabsaday oo dib aan u dhacnay haddana waqtiga uu sii sigayaa 6 saac ku sii soconaa maswaybu ku dhacday intaa kadib maanta waxaan muxuu ahaa u joognaa oo xafladdaani iyo jamaca aan jamciisanahay ama sana kulankeena barakaysan arday quraanka dhameysay oo xafladooda iyo muxuu ahaa mudib kadib ilaahay subxaanahu wa tacaala uu waafajiyay maanta inay noqoto iyo arday kale oo farbarkii dhameeyay oo 16 arday ah waxaan soo marnay oo dhaqankeena ama sana Soomaalida waxbarashadeeda looxa wax lagu baran jiray waxbarashada waxa isku bedeshay buug bay isku bedeshay marka buugtii wixii lagu bartay marxaatadoodan rabnaa inaan soo bandhigno arday kasta casharkiis anaga oo waqtiga ilaalinayno markaan gaarin waqtigooda culimada la soo hormariyo sidaan ku ballansanaynay buugta inay noo soo qaadaan ahayd haday ba noo soo qaadeen waa khayr hadaysan soo qaadin waan ogaan doonaa insha Allah marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin madrasadan mudday jirtay guud ahaan markaan ka hadlo laakiin si gaar ahaan markay madax banaani samaysatay ama sana meel gaar ay furtay madrasadan waxa laga joogaa 2 sano 2020 baan furnay haddana waxaan ku jirnaan u malaynayaa 21 labadaas sano waxaa nahabsaday cudur ilaahay subxaanahu wa tacaala naga dulqaaday ay u bixiyeen magaca ay dhahaan corona virus dadka wareeriyay jahwareer dadku riday oo ruuxbi badan sameeyay kii gaal ahaa wax badan ismoodayeen hoos u dhigay awoodiis iyo cilmigii uu sheeganaa iyo muxuu ahaa horumarkii uu sheeganaa in tabar uu waayay waxa kameen waayay muslimiintuna markii hore ba Allah ku xirnaayeen oo xamdi iyo qadar Allah ma shaa faala inay dhahaan oo ilaahay qadartiis raali ay ka noqdaan ay ka soo baxday halkaas cudurkii bani aadanka lagu imtixaamayay dartiis madrasadii dib u dhac badan ku dhacay waxbarashadii
dhan kaste xaqiiqdii wayna saamaysay sanadkii aan soo dhaafnay 20gii madaarista badanaa way xirnaayeen iskuulalka sidaan ogsoonahay muddada hadda madaarista toos loo furay waxbarashada noocay ahaataba toos loo furay waa muddo kooban oo dhow muddadaas kooban baa wixii ilaahayna waafajiyey iyo wixii qur-aanka dhexda u maraayay iyo wixii farbar dhexda u maraayay ama sana balaaw ahaa baan awoodda saarnay ilaahay fadligiis waan ku guulaysanay dad badanaa farbartay dadkaas 12 qur-aanka way dhameeyeen dadkaas 12 haddii 2 arday laga reebo waa dadkii dugsiga ku farbartay alif looga bilaaway ilaahayna wuxuu ku mahadsan yahay oo na waafajiyay haddana qur-aankii ay ku dhameeyeen meeshay ku bilaaween alifkii waqtigaas dheer aan soo marnay wixii aan ilaahayna waafajiyay oo faa'iido ah baan doonaynay maanta inaan bandhigno waqtigana aad buu u yar yahay waxaan kale idin xasuusinayaa madaarista runtii meel ay ku yaalaanba madaarista ama sana dugsiyaasha qur-aanka macallimiinta aad bay u dadaalaan oo waxbarashadii iyo dadaalkooda ma yara agarkooda markaan ka hadlo khada'aadna way jiri karaan bani aadamkana macsuum ma aho macallimiinta khaladaa ka dhaci kara wayna saxi karaan wayna gafi karaan macsuum ah nabi ilaahay ma ah wixii tabar ilaahay uuna waafajiyay waan dadaalaynaa insha allah waalidiintana way dadaalayaan waalidiin barakaysan ilmahooda aad u jecel waxbarashada la jecel juhdi badan iyo dadaal badan muujinayo baatiin waad ku ammaanantihiin xaqiiqdii qof maanta aan isleeyahay wuu gaabinaya ma jiro waalidiinteenu aad iyo aad ugu mahadsantihiin allana ha idin jaaziyo oo ilmahana baari ha idinka dhigo taa markaa intaa ugu gudbo madaarista waxyaabaha ay bixiso duruusta waxaa ka mid ah aan ku barano sida axaadiidta nabiga siirada oo qayb mar aan ka qaadanay waayahan hadda cuduradii iyo jaaniskii iyo waqtigiiba aad muxuu ahaan u weynay sida khulaasada oo kale farbarka oo kale xoogga saarnaa madarasada waxyaabaha caanka ay ku noqotay waxaa ka mid ah dhanka farbarkaan xoogga saarnaa ardayga markuu farbarto asana wuu kaaftoomay oo ma dhaboodsan oo ma dhabaysana waalidkii dhalayna ma dhabaysana oo qof isku filan oo casharkiis diyaarsan karo buu noqonayaa aad iyo aad waxaan xoog u saarnaa sida qaalibka ama darasada ardayga inaan farbarno asigoo kutub qaadanin aad uu u farbarto farbarka aan ka saxno kadibna uu u gudbo kutub ardadan inta fadhiso waxaa ka mid ah arday ku gaartay qur-aanka kala barkiis ama sana ku gaartay suuratul furqaan qaar gaaray subax talaada ama sana isniin fooda la galaya ku jira saan ugu wadnay farbarka sidii baadidii qaabkeeda badanaa wax ku maaran jirnay waana ku guulaysanay ilaahay baa mahadsan marka waalidiinay marti sharafka culimada dhammaantiin soo dhowaada aad iyo aad baan ugu faraxsanahay wujuuhdiin barakaysan oo farxadda iyo nashaadka iyo quruxda ka muuqato aad baan ugu faraxsanahay ilaahay baana ku mahadsan waqtiga oo aad u yar dartii waxaan ku soo koobayaa kelimadayda soo dhowaada insha allah wanaag iyo sharaf iyo bogaadin baa idin sugnaatay wajazaakum allahu khayr wa ahsana allahu ilaykum wa baraka allahu fiikum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh